qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin aad u kulul wax kasta ka xanaagay taqriiban laakiin guursaday gabar wanaagsan diin leh akhlaaqadaba ninkaas kulul iyo gabadhaas qabow oo diintii akhlaaqda leh sidii u wada noolaan doonaan فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يرجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبيو قصة عصور قصة دينا ما أنت وحي كوساب سنتهاي نين دليارو فاميل فقير كيمي لكن وحي صابرين جامعة يودمي شقو أبلاغري شقو هلو وحير مكوك شقي والرعدي شقة كلا سيدو كلا شقة كلا سيدو كلا مركدا بأبيه ساكور هلي wuxuu ku yiri wiilkaygu business yar rabaa inaan ku furo maadaama shaqada iskeeninin ee kan ka shaqeyso wiilkii hayuu yiri aabii sidoo hadalkiisa ku maqlay meel yar wax loo habeeyay shaqo part time uu iska raadsanayay business kan yarna uu iska sameeysanayay almuhim wuxuu rabay inuu guursado aabihiisu u yimid wuxuu ku yiri aabow hadana weynaa noqday hooyarna waa aruursaday waxaan rabaa inaan guursado waxaan kaaga baahanahay laba arrin talo iyo gabar fiican ina ila raadisid abi wuxuu ku yiri waa arrin wanaagsan waa ku garab istaaga waana kula doona laakiin waxaan ka rabaa arrimaha soo socdo ku gabadha raadsanaysid ha noqoto gabar diin leh labo ha noqoto gabar akhlaaq leh saddex ha noqoto gabar degan oo aan kululeen afar ha noqoto gabar family fiican oo la yaqaano ka dhalatay wiilku wuxuu ku yiri marka abo shuruudahaas dhan maxaa u keentay markaas wuxuu yiri qof kasto guursanay shuruudahaas inuu fiiriyo way u fiican tahay laakiin adiga bizaad waa ku qasban tahay laana waxa tahay qof aad u kulula tahay waa ku aqaan aabaha ahay wax kasta waad ka xanaagtay xataa wax yar oo macna leh waa ka xanaagtaa sida darteed qofka ku hayn karo kaliya waa qoftaas oo kale meelo badan la galay dad badan la fiiriyay almuhim markii dambo family la helay oo sifaadku aabaha sheegay wadato gabadhii waa loo doonay wuu guursaday habeenkuu guursanay aabihi wiilku waan wuxuu ku wiilkaygu dhageyso waa ku aqaana qof kulula tahay gurigana waxa waaye tanaasulaad waaye adigana hadii wax lagu qabsado inaad ka degtid waaye iyadan hadaa wax ku qabsatay inay ka degto waaye hadii laakiin mindi ku taag noqoto wiilkaygu gurigaas wuu burbura hooyadaas aan ku soo hayn jiray waa ogeed adigana waxaan ka rabaa nin rag inaa noqotido zawj saalix noqotid lagu daydo habeenka kugu horeeyo gabadhaada xaaskaaga waxa u sheegta waxa dhibsanaysid dabeecadaada inay kulushahay wax walba u sheeg si u ogaato wiilkii sidii aabiis u sheegay sameeyay gabadh xaaskiisa ama naagtiisa uu u sheegay wixii dhameed way ogaatay marka ninka inuu kulul yahay waxyaalo qaarkood u dhibsanay way ka ilaalin jirtay almimlaak waa taqaana laba qof isla joogo way wax u baadhacay dhaqso wuu xanaaga wuu baxa almin gabadha uu ku dul qaadanaysay afar ilmaas lagu dhalay maalin maalmaha kamid aad u xanaagay gurigu ka baxay ma soo noqonin gabadhi waa wacdi ma soo noqonayo telefoon ma qabanayo ma soo jawaabayo laba isbuuc ka bacdi ayuu soo noqday wuxuu ku yiri xaaskiisa dharkaygan qaadana waa ka tagoyay naag kalaan helay naag business leh oo qani ah ayaa helay naagtaasaan go'aansaday inaan guursado adigana meeshan iska joog hadaa rabtid waa ku fura hadaa rabtid saan ku joog naagtiisa wuxuu ku tiri hadaa guursanaysid wax dhib ma lahan guurso laakiin waxaan ka rabaa cadaalad inaad ku dadaashid naagtaas lacag ka soo qaadayna aniga ma rabi shaqayso nin raga tahay biilkayga ii keen ninkii wuxuu ku yiri waayahay ballan waayo cadaaladna waa sameeyna dollar aan ka soo qaadanay kuma siinay waxa aan shaqaystay baan ku keena sidii lagu heshiiyay ninkii waa baxay baxitaanku baxmaba soo noqonin bilo maqnaa naagtii waa wacay ma qabanayo telefoon u diray ma soo jawaabay text message ma soo jawaabay markii dambe risaalo dheer oo qorto waxay tiri walaalo maqal waxaan ku xasuusinaa xadiis rasuul sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofkii halna ka badan guursado oo cadaalad u sameey waaye aakhara wuxuu imaana soo dhinac u raaracay u imaana waxaan ka dalbana inaa cadaalada ku dadaashid kuma diidana ilaaha ku banay guurso laakiin cadaalada ku dadaal ugu naagtaada ahay afar caruur aad dhashayne waa hayaaye ilaahay ka baq naagtaas xaqeeda si anigana xaqayga
isi ninkii risaalada uu aqriyay kama soo jawaabin gabadhii waxa u cadaatay marka ninkaas inuu soo jeedin waxay bilowday marka ilmaheeda inay ku dadaasho wax yar kadib aabaheeda dhintay alxamdulillah xoogoo fiicanay ka dhaxashay ilmaheedii ku dadaashay waxbarashay gelisay aabihii khalaas waaba hilmaamay marka hore bilay hadda siniinay marwaysa ilmihii high school ay dhameeyeen cunugeedii koowaada marka wuxuu ka baxay jaamacadii ka baxay alxamdulillah jaamacad markuu baxay dugsiga qur-aankana haaf qur-aanku uu xifdiyey shahaadadii jaamacadda iyo shahaada juska nus qur-aankii inuu xifdiyay ayaa isla siiyey maalin maalmaha kamid ah albaabka lasoo garaacay waxaa soo galay ninkeedii oo ka muuqato dullinimo iyo faqri iyo dhibaato ka muuqato iyadoo wax weydiinin ayay si fiican usoo dhaweysay muqsishii u furtay daarad qabaysanaysa waa taase shaahiyo cuntay u keentay ninkii markuu cuntada cunay wuu qabaystay wuu xishooday hoos uu fiiriyey naag uu ka maqnaa dhowr iyo 10 sano oo hadda u yimid asigoo saase ninkii naagtiisuu fiiriyey wax su-aal ma weydiinayso intaan ku maqnad ma dhehayso ma canaananayso wuu ooyey ilinaa ka timid markaas wuxuu ku yidhi heblaaye raalli ahaa waa kaa qaldamay waa ku dulmiyey dulmigaaga iga soo baxay naagtii aan u raacay xoolaheeda aan u raacay way isticmaarsatay way idulleysatay si xunay ii gashay waxaan ahay agteeda sidii shaqaaloo kalo lacag aruuri baan isdhahayay lacag aan soo aruurina haba yaraatee ma jirto kambanigii ii furtay kambanigii waxay tiri ku shaqeey oo adaa iskale ana warqad kama saxiixanin hadda ani iida markaan iskhilaafnayne gurigii iga soo racdaysay kambaniga markaan rabay inaan qaatane waxay tiri waxaa meesha ku leedihi haba yaraatee ma jirto maxkamaday tagtay waxay iga dalbatay inaan furo $1 inaysan isiinin wuxuu yidhi markaasaa ana sharafteeda u ilaaliyo maxkamad ma ku raacayaan ku dhahay sidii aan kusoo furay dharkan aan wata mujeeday keliya maanta adduunka haysta xaaskiis isla markiinay soo booday ee qosashay waxay tiri maya intaas keliya kama haysat wax ka qiimo badana haysataa gurigaanaa leedahay anigaa xaaskaaga ah caruurtaadaa kuu joogto 4 caruura kuu joogto cunug jaamaca ka baxay oo 15 juz xifdiyaa haysata dhihin wax ma haysta dhihin xoolo adduun waa laga taga gurigaaga waaye soo dhawow ninkeygaa tahay waa ku jeclahay caruurta aabbahoodaa tahay wax kastaa samaysid waa ku jeclahay caruurta aabbahoodane waa tahay gurigana gurigaaga waaye anigana xaaskaaga ah wax allaale waxaad weydiiso waa kuu samaynahay taasna iyo keyskeeda naga xir saa usoo xirta leh ha ku ahaato cajiib waa qiso yaab badan soo maahan gabadhan fiiri wanaageeda cajiib waaye wallaahi qisadan faa'iido badan ay leedahay iyo cibro badan qaar ka mid ah sheega inta kale adigaa lagaa raba inaad soo qortay insha allah tacaala faa'iidada koobaad nimankay ku socotahay markaa guursanaysid ha fiirinin gabadha quruxdeeda ha fiirinin gabadha xoolaheeda ha fiirinin gabadha qabiilkeeda iyay ka dhalatay hal meel xooga saar diinteeda xooga saar diinta markaa xooga saarteed kuwan kale hadday kuu soo raacaan alxamdulillah waa garanaa nimanaa nahay nimanka waxay jecel yihiin ninkaas wuxuu kule waxaa rabaa naag cad oo dheer oo qurxan intaas waa 3daas point oo u taagan tahay diintana baron ha ku ahaato inta kale hadday kuu soo raacdo biha wa nicma alxamdulillah hadday kuu soo raaci weysay xooga waxaa saartay diinta nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tunkaxul mar'a li 4 gabadha waxaa loo guursadaa 4 mid kamid ah loo guursadaa quruxdeeda loo guursadaa 1 xoolaheeda loo guursadaa 2 nasabkeeda loo guursadaa iyo waxay ka dhalatay family ka raad 3 diinteedana waa loo guursadaa 4taas ugu wax loo guursado rasuul sallallahu alayhi wasallam inuu 4 ku sheegay kama aaminsan wuxuu ku yiri fadfar bidaati diini taribat yadak war gabadha diinta la ku ilaahay ku barakeeye gacmokaada ha booreyste yani duxa laga wada gabar diin la markaa guursatid adigana waa xifdisanaanaysaa waa lagu ilaalina caruurtaadana ugu muhiimsan adduunyada waxaa ku leedihidne waxay noqonayaan caruur wanaagsan oo xifdisan sidaa darteed ku dadaal gabar diin leh akhlaaq leh degan faamil fiicanne ka dhalatay khayr allah ku siiyo faa'iidada labaad intaadan guursanay la tashi waalidkaaga dhalinyarta qaarkood ma rabaan waalidkooda inay la tashtaan xataa markuu guursanay u sheegina laga yaabaybo maya waalidkaaga la tasho wuu ku caqli celinaa ciladahaada u yaqaanay meesha kuu fiican u yaqaanay kuma qasbanid naagtu aabbaha iyo hooyada guurso ku dhahan inaad guursatid maya khiyaaraa leedahay
adoo hooyada aabaha ixtiraamaysid si wanaagsan ugu cudur daaran karaa haddaadan rabin. laakiin qof hadday kuu keenaan waxay kuu keenayaan qof ay og yihiin isdhahayiin qofkan waa qof u dhiganto ama u qalanto wiilkeyga waaye. marka sidaa darteed intaadan guursanin la tasho, xataa haddaa adiga mid kiisatid oo rabtid midkaas inaad geshid intaadan gelin waalidkaa la tasho. laanna waxaa haddaa tashatid talada waalidka ay ku siiyaan waad ku liibaanaysaayo marna kuma khasaaraysid. faa'iidada saddexaad, dulmiga iyo xumaantuu leeyahay. ninkan gabadhan wuu dulmiyey iyadoo jecel oo caruur fiican u hayso, xanaagiisa badan iyo faqrigiisa ugu dulqaadanayso. maalintuu arkay naag xoolo leh wuu ka tegay, xataa gadaal uma soo fiirin. shuf dulmi intaas ka badan weli ma aragtay. laakiin maxaa lagu tus? adduunyaa lagu tus. waa qofuba ilaahay jeceliya. qaarkooda ma lagu tuso, aakhara loogu dhigaa, hal mar lagu cadaaba. adduunyaa lagu tusay, ilaahay qofuu jecel yahay waaye. dulmi haddaa geshid waa lagaa aaraa, adduunyana waa lagaaga aaraa, aakharana waa lagaaga aaraa haddii aad ilaahay u toobad keeni weyse. qofkiina cafi wey uu ku cafin waaye. wuu dulmiyey gabadhan, waa la dulmiyey, shaqaalaa laga dhigtay. markii laga dhamaystayna waa lasoo haraantiyey, kikawdaa lagu soo sameeyey. baxaa liir haddii kale maxkamaan ku geyna, sharaftaada ilaasho. faa'iidada afaraad, sabarka iyo wanaagiisa. gabadhan walaasheena fiiri, waa sabartay sax, nacam dhibaataa soo gaartay, xanuun badan ay soo dareentay, laakiin sabarkeedii ninkiioo socdaa loo soo celiyey. intaa keliya maya, ilaahi subxaanahu watacaala meel kaleu wax ka siiyey. aabaheedaa dhinta dhaxalay ka heshay. intaa keliya maya, caruurteeda uu ilaahay u barakeeyey. caruur hooyo bis soo korisay oo jaamacadda ka baxay, qur-aanka nusna xifdiyey, kuwa kalena ay kusii socdaan. yaa heli kara? qof heli kara waa yar tahay. ilaahi subxana wa taala qofkuu siiyo, ilahay qofkuu siiyana waxaa waay sabar. gabadhan ilahay wuxuu ku siiyey waxaa waay qof sabartay ahayd. qofkii sabro adduunyana wuu ku liibaana, aakharana wuu ku liibaana insha allah tacaala. laana sabarka waxaa laga soo qaaday, sibirkaa laga soo qaaday, kharaar waaye. bilowga hore waa kharaar yahay, laakiin faa'iidada ka dambeyso waxay ka macaan tahay, marabkay ka macaan tahay. ee sabarka hala badiyo ninka iyo naagtaba. faa'iidada shanaad iyo tan lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobanaad adigaa lagaa rabaa. adigii fiirsanaysa lagaa rabaa. fikir maskaxda ka shaqaysii, maxaa u malaynaysaa faa'iideen lagu dari karo? in adiga soo qortidaa lagaa rabaa. ilaahay khayr ha ku sii, bakhiil ha noqonin. faa'iida a soo qortaa laga yaabaa dad kale inay ka faa'iidaystaan. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu jimcada soo socoto iyo qiso cusub. ilaa jimcada soo socoto laga gaaray maxaa lagaa rabaa? inaad dhegaysatid, ka faa'iidaysatid, ku camal fashid, walaalaha kalene usii gudbisid. bakhiil ha noqonin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.